Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal. Maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado macluumaad yar oo gaaban oo ku saabsan sida maaragtay dadka markay rabaan inay fadhiistaan oo kale yacni sideebaa saxan oo quman oo maaragtay loo fadhiisan karaa. Maadaama ay dadku maaragtay dad badan dhabar xanuun u qabto maaragtay qoor xanuun, marka waxyaalahaas oo dhan waxay ka imaanayaan adigoonan si fiican u fadhiisanin, ama haddii aad meel shaqo ah ka shaqaysid oo kale oo aad computer deskiga ama miiska maaragtay shaqadoo kale aad fadhidid yacni oo aad saas kale usoo furarsatid oo kale, yacni sideebaa saxan oo loo fadhiisan karaa oo aan dhabarkaaguna kuu xanuunin, qoortuna ay kuu xanuunin, lugahaagana aynan kuu xanuunin. Marka sida saxda ah loo fadhiista ah. Marka walaalayaal waad u jeedaan labada sawirkan meesha ku haysan yacni badanaaba aniga xitaa aan iska soo qaadayba waa ogtihiin dadka yacni dadba dee waaba habid amiin waxay u noqotay mataqaanaa wax ay mar walba sameeyaan qofkii oo iska dhabarkiisa usoo qaloocinaya waad arkaysaa, ama lugihii maaragtay soo laabanaya xoog usoo laabanaya luga toosinaynin. Yacni dhakhtaradu waxay ku dhahayaan haddaad rabtid inay dhabarkaagu straight noqdo oo toosnaado, marka hore waa inaad sintaada iyo fadhiga meesha aad fadhidid ka bilowdid. Si fiican u fadhiiso, dabada si fiican dhulka u dhig oo u fadhiiso oo isleeg oo miisaaman oo dhabarka ilaa iyo lugaha saa u siman oo yacni mid walba teeda kale ilaa lowga ay siman tahay. Lugta hoos u raaracisana lugtuna waa inaynan ama straight saas isaga toos aadan u kala bixinaynin ama gadaal u dhigaynin markaa lug toosan. Taas waxay easy kaaga dhiganaysaa inaad balance yacni isku dheelitirnatid labadaada simood ay isku dheelitirmaan. Haddii aad dhinac isku qalloocisid oo dhinac isku qalloocisidna waxaad ogaataa simahaagu inay kala leexanayaan, dhabarkaagu inuu leexanayo, qoortaadu waa yacni adigu sidaa jirkaaga aad ka dhigtid fadhigaaga ka dhigtid aad u fadhiisatid ayaa maaragtay caafimaadkaagana ay ku xidhan tahay inaad heshid posture fiican oo toos ah oo si fiican maaragtay aad jirkaaga u xakameysay oo aad u fadhiisatay. Marka halkan waxaan idinkula qaybsamayaa sawiro ina tusaya yacni sida fiican ee loo fadhiisto iyo sida maaragtay sida maaragtay aan ku anfacaynin khaladka ah ee dadku ay majority dadka u fadhiistaan. Marka walaalayaal waxaan rajaynayaa inaad fiidiyogan idin anfici doono insha Allah biidnillah. Haddaad rabtid in dhabarka xanuunka iska yareysid, qoor xanuunka iska yareysid, lugu xanuunka iska yareysid, please isku day inaad si saxan u fadhiisatid. Marka waxaan rajaynayaa inaad ka heshaan fiidiyogan, inaad ka hesheen idin anfacay. Haddii aad ka hesheen maaragtay like and comment, haddaad nagu cusubtay subscribe insha Allah adoo ku mahadsan walaal. Marka insha Allah dhammaantiin aad bad mahadsantiin, khayr baan idinka tagay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.